Galdagob waxaa la aasaasay 1956 dadka qaar 52 way yiraahdaan deegaan marka waxa ugu sokeysay Beyre aad soo martay ma malanayo waxaa laga aasaasay tuulo yar meesha hadda la oran jiray markii hore Galdagob yar baa la oran jiray kadibna laga qoday ceelal badan oo ceel gacmeed ah haddana dadku u yaqaanaan laasaha oo aan sidaa u weyneyn waxaa lagu eexsaday haddee biyaha dadkii reer guuraana waa u badnaayeen biyahana waxay ahaayeen lafdhabarta ugu muhiimsan oo qofku markaas meeshuu degaya ku dooranayo magaalada waxa degmo laga dhigay 78 intaan degmada laga dhigin madaxweynuhu halkan buu yimid madaxweynihiisa iyad bar waqtiga joogay Allah u naxariistee halkan hadduu yimid waqtiga abaaraha waqti ku dhow bay ahayd halkan waxay ahayd meelihii la dejiyey gargaarkii abaaraha la dejiyey ka mid ahayd madaxweynaha wafdi ballaaran oo hogaaminaya yimid dadku waa la shireen wixii markaa baahi ay arkayeen bay weydiiyeen kadib dhowr sano kadib waa laga daba tegey xamar baa looga daba tegey odayaal 40 meeye ah baa u tegey oo ugaaska isinka uu hogaaminayo waxay ugu tageen waxay ahayd ugu weynaa meeshii maadaama ay meel population laha tahay meel istaraatiiji ay tahay in degmo laga dhigo madaxweynuhu waa aqbalay fulinteedii baa 78 madaxweynuhu wuxuu yimid gobolka mudug kalkacyo yimid dadkii joogay oo kala duwanaa qabaa'il kala duwanaa oo la shiray halkan odayaal deegaankan ka socdaa la shiray oo hawshii hore ugu tageen mar labaad codsigeeda u geeyey taasna waa laga aqbalay gudoomiyihii gobolka markaa joogay maxamed cartan wadaag laga oran jiray malayaabaa uu madaxweynuhu amray inuu saxiixo sidaasaa lagu siiyey degmada ku gashay dagaalka dhulka ah oo ciidamada Itoobiyaanka ay soo qaadeen wuxuu ahaa 82 baa magaalada la qabsaday ka hor marka bishii labaad baa la qabsaday magaalada 82 maalin Ramadaan 17 Ramadaan ay ahayd magaalada waxaa xabashada ka kacday 1988 xoogna loogama kicin heshiis ee labada dowlad galeen baa ay wakacday waxaan xaqiiqo ah oo aan shaki ku jirin magaaladani waa magaalada kaliya la oran karaa magaalada kaliya oo inta waa dhici karta balanbalooyadan la qabsaday inay soo geli karto laakiin magaaladani waa magaalada kaliya oo inta gabi ahaanba la tirtiray oo dhulka la dhigay oo aan guri ka taagnayn waxaa xabashada uga tagtay 2 guri oo dhagax ah oo iyadu markaa ay xafiis ahaan u deganay magaalo inta la tirtiray magaalo jirtay oo kobocday oo saas bulshooyinkooda oo dhaqaalaheedu ahaa inta la tirtiray mar labaad dib u dhisantay oo weliba aysan dowlad dhisin dad shacab isku tasho ku dhisteen magaalada kaliya Soomaaliya ka tahay magaaladan haddii marka xabashada ay ka kacday 88 ay ka kacday 2 sano kadibna dowladda Soomaaliya la martay macnaha iyadoo 7 sano gacan gumaysi ku jirta baa 2 sano kadib dowladda lagu taa macnaheedu waxa weeyaan 9 sano 7 sano iyo 2 sano 9 sano waddanka Soomaaliya oo dhan waxay ugu horeysay burburka ugu horeysay markii 88 laga kacay dowladdu waxay ugu horeysay ku dadaashay waxay ahayd ceelashii oo markaas jabnaa oo qaarna xabaalmeen in loo soo diro khubaro iyo qalabkoodii oo ceelashii dadkii biyo helaan markii ceelashii la kiciyey oo magaaladii markaa nolol ay ka muuqato laakiin aan guriyo jirin oo dadku waabab iyo ay dhisanayaan ayaa waxa bilaabmay dowladdii ay dhacday dowladdu markay dhacdayna oo garanaysaa waxaa ku xigay civil war oo dagaallo ehliya ku xigay
iyagiiba haddana cabsi kala dhaliyey wixii loo gaaray 94 baa dagaaladii ama 93 baa dagaaladii tooska ahaa ay yaryaraadeen oo hakad galay. waxaan ku aansanay magaaladan maadaama waddanka burburkiisana 9 sano ugu horeysay dowladna hadda aysan jirin in isgaarsiintii aanu geyno meeshaas aan ku leeyahay 3-4 guri oo dhagaxa ku yaalay baanu waxaanu nimankii ganacsatada ahaa oo naga waaweynaayo founderska ahaa ku qalqaalinay meeshaas population badan bay leedahay Itoobiya u furan tahay aad bay uga faa'iido badnaanaysaa meelaha aad ka fikiraysaan. telefoonka marka waxaa la socday korontadii maadaama isgaarsiinta ay u baahan tahay matooradii waxaan uga faa'iidaysanay korontadii maadaama korontadii telefoonkii loo baahan yahay 4 saac u shidnaado switchadii baanu magaaladiina waxaan uga faa'iidaynay korontadii inay day and night hesho habeen iyo maalinba markii magaaladan koronto ay habeen iyo maalinba shidan ay heshay gaalkacay iyo mugdi bay ahayd oo koronto ma lahayn koronto saacado yar joogta bay lahayd saasaa marka waxay keentay magaaladii inay si mar labaad si degdeg ah u dhisanto oo dad badan oo aan soo degin ay soo degaan nolosha ka aasaasantay oo biyaha iyo korontada iyo isgaarsiinta ah qofku uu access u helay intaarkii laga tago qofku adduunkii daqiiqad kula hadlayo oo wixii u baahan ay soo gaarayaan halkaas magaalada dhismaheedu uu ka aasaasmay waxyaalahan dambe aan ka sheekeynayay oo dhismayaalka wadada ay wax ka dambeeyeen oo markii deegaankaasi uu yimid magaalada dhisantay oo aad u dhisantay oo guryo dhagax laga dhisay baa waxaa yimid hankan kale oo wadada in la furo isbitaalka in la dhiso maxaa la yiraahdaa customkii in waftigiisa la hirgeliyo waxaan isleeyahay magaalooyinka ugu wanaagsan oranaya laakiin magaalada ugu wanaagsan xagga soo dhaweynta isdhexgalka dadka inay tahay waan aaminsanahay waxaan kaloo aaminsanahay magaaladani waxay kaga duwan tahay magaalooyinka Soomaaliya magaalooyinka kale in qofku oran karo magaalada hadda anaa deegaan u leh oo haddaad degaysid kulley soo dhawow laakiin haddii dad marti tahay ku deg laakiin magaaladan Galdogob Soomaalida waa ka dhaxaysa waxaan isleeyahay cid ka sheegan karta ma jirto waxaana keenaya Soomaaliya dhiiggeedii iyo lafaheedii dadka ugu qaalisanaa ciidamadii Soomaalida saraakiil iyo janna iyo wixii ka hooseeyeen lafahoodiiba hadda meeshan ka hadlayno ku aasan waxaan uga jeedaa magaaladan joognaa hadda gurigaan hadda uga jeedo dad aad badan baa yani ku dhintay ku shahiiday oo magaalada u soo halgamay oo reer walba leh Soomaaliya inta u qaybsanto cid ka maqan aan la arag sidaa awgeed baan qofna oran karin magaaladan iskale maxaa yeelay ninka aabihii ku dhintay ama wiilkiisa ku dhintay ama walaalku ku dhintay nin yiri waa ku dhashay oo ma garanaysa ama aabahay deegaan ma arki jiray kama sheegan karo